بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله. halkan waxaan doonayaa caawa marka horta waxaan salaamayaa waa warbaahinta horta dhammaan ahaanteedba gudaha dibadba waxaan doonayaa caawa inaan ka hadlo oo u kalifay markaan waxyaabo badan oo dadka lagu majar habaabinay arkay saldhiga imaaraadka laga sii berbera وين أغنهاي سين أغنهاي حبر الكذي هاي ستة بقولي كنت بنلنا كيلومتر حبت أنت هالك وحيبها أنت يروح أمان كذا سوا وحيبها أنت هاي بعد بدنا ده وحكي عليها وحيبها أنت وحقشين كان وحقوق قرية لك عليها وحيبها أنت هاي وحي حبت أنت هالك نبت قليل السولا وحأكتين إذا مديننا يتمرتودا يأودودا قلبك هيستان انتبه وحبها انت رانادرادي إلى الله حيبتا أي بحانتا هاي وحاسو دو حكينيا سلقا نوحو كينيا إنين عيد مدنو يشان توبر هلان قلب هلان رادر هلان أود ويشان inay sugi karaan xeebtaa dherkeedu intaa yahay nabadgelyadiisi waxaan kaloo ka hadlayaa in badan baynu waxaynu ku dhololinahay waa ictiraafka waxaa ka horeeya marka hore si cid ku danaynaysa dalkaaga wanaad hesha markaad cid danaynaysa dalkaaga hesho ee aada saaxiibba hesho ayaad ictiraafna ku hamiyi kartaa laakiin dal caalamkaba ka go-doona sidii ictiraaf feliya oo adag tahay sidaa darteed waa markii ugu horreysay aynu helno saaxiib dhow maalgashi diyaar oo ah inuu waxnala qabto diyaar oo ah waxaa ogtihiin xiriirkii Soomaaliya iyo Imaaraadku markay marayaan waxaa ogtihiin safiirkoodii kasoo qaateen uguna yeedheen waxaa ogtihiin Soomaaliya waxay ka howlan tahay waxaan sida aan arkayo ama jaraadka qorayeen waxay ku hawleeyeen baarlamaanka Soomaaliya siday mooshin soo dhig lahaayeen yani saldhiga ka hor imanayaan sidaa darteed waxaan leeyahay waa markii ugu horreysay in maalgelinta intaa laga helo package ka wada socda Dubai World iyo saldhigani lacag 1 bilyan gaaraysa dalkeena lagu maalgeliyo ciidamaduna markay tayada intaa laga helaan maxaynu kale ka faa'iideynaa waxaynu ka faa'iideynaa inaynu ka helno ardaydeena iskuulada ka baxayna shaqo ee dhiman ee ku dhimataa badahaas inay shaqo helaan waxaynu ka faa'iideynaa in dalal badan oo caalamkii ku soo dhiiradaan inay maalgashadaan Djibouti waa garanaysaan maalintii saldhigii ugu horreysay bixisay maanta say kala tahay waxa aad la yaab u leh Djibouti sideed dowladood saldhig la siisay Eritrea 5 siisay waxa ka soo gaari waayay ee Soomaaliland ka soo gaaraya niman fara badan oo daacadaha ka dhigisay telefishinka oo la xutiyin baa soo wareeraya samada ay ugu soo dumaysa waxay Djibouti iyo Eritrea ugu soo dumi waayeen Soomaaliland ugu soo dumi aan garan lahayn waxaan leeyahay in aynu nabadgelyo la'aan ka hela daayo waxaan leeyahay nabadgelyadiina dalkaas sugmaysa sidaa darteed waxaan leeyahay waxaynu ogeyn shirkadihii batroolka dalkeena yimi markaynu inagu ku qaylinay wixii ka dhacay way iska laabteen shiini baynu ogeyn macanteenu baarayay ilaa aynu gaadhnay inaynu ashtakayno oo dowladda xamarka ashtakayno oo nimanka mucaaradka ka ashtakeeyeen iyana way iska laabteen war haddii dalkan cid kasta oo timaada horumar inoo si daba la eriyo dalkana go-doon buu ahaanaya waxaan leeyahay qolada mucaaradka ee wadani baan la hadlayaa war ka daaya waddanka hagardaamada ka daaya shicibka beenta u sheegaysaana wax aada iyo aada ula yaab badan leh oo wax aada iyo aada ula yaaba ah dad ku mudaharaadaya horumarkii dalkooda iyo maalgashigii dalkooda dad ku mudaharaaday markii ugu horeysay taariikhda dhacday Somaliland
in london lagu mudaharaado iyadoo lagala mudaharaadayo horumarka dalka. waxaan aada ula yaabaa oo kale soomaalida waxaa la yidhi ninkay ariga kala quulsatay geela u dirta. waxaan la yaabsanaya aada iyo aada iga yaabiyey in babaayo 25 sannadood dalkan qarannimadiisa kasoo horjeeday geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay inaan somaliland go-in ayaa maanta dadka wuxuu ka iibinayaa inuu dadka iyo shacabka u danaynayo. waxaan kaloo aada u la yaab leh weli intaan arkayay ama dibadda ahaatee ama guda ahaato ma arag speaker baarlamaan ama guddoomiye baarlamaan oo baarlamaankiisa ku mudaharaada go-aankay gaadheen. mana arag guddoomiye baarlamaan oo isagoo halkuu shirka hogaamin lahaa ka baxa shirki oo go-aankay gaadheen baarlamaankiisa ka hor yimaada. wax aada u la yaab leh. waxaan malanayaa dadku inay caqli leeyihiin, qof walbana cv-giisa hayaan. waa bal dadka shaashadaha jooga ee idinla hadlaya barto eega. waa ninkii 5 sannadood ixtiraafka somaliland kasoo horjeeday. waa ninkii horumarka baarlamaanka haystay 12 sannadood wax alaal wuxuu qabtay aanan garanayn ee maantana ku mudaharaadaya horumarka. waa kuwii lagu xidhay dadkii qaxootigaha raashinka loo keenay. waa kuwii maayarka xigeenka ahaa hargeysa ee dhulkii oo dhan cunay ayaa maanta dadka u sheegaya inay saldhigani inoo keenayo colaad. waxaan leeyahay saldhigani nabad buu sidaa, saldhigani horumar buu sidaa. dowlada waxaa laisku dhaafay jabuuti maanta halka la maraysaana waa saldhigyada ay bixisay. marka waxaan leeyahay shicibka somaliland anoo la hadlaya, dadka muwaadiniinta ah la hadlaya warbaahinta xorta ah. warbaahintu waa inay ka shaqeysaa horumarka dalka. warbaahintu laakiin waa inaanay ka shaqeyn dumista dalka. waxaan leeyahay war shicibka somaliland ha ka digtoonaadeen waxyaabaha rayada ah loo sheegayo, waxyaabaha waxba ka jirin ee qarannimadan lagu duminayo, horumarka laga soo horjeedo. haddaynu waa ogeydeen warshadii sibirka waa lagu mudaharaaday, maantana Ethiopia sibirka yimid qaadana. marka waxaan leeyahay war caqligu ha shaqeeyo, dalkeenna horumar yaan loo diidin. war horumarkana wixii inoo yimaadee horumar inoo sidana aan inagu soo dhaweyn oo inagu lacag siin maaha. marka waxaan dhammaanba shicibka somaliland muwaadiniinta waan salaamayaa. waxaan leeyahay waa markii ugu horeysay nasiibka aynu helay aan ka faa'iidaysan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.